الجدري ولكن الشيخ محمد حسن dad eeriyada yaqaana oo meesha calaamadsaday oo soo diyaarsaday oo say u diri lahaayeen ka soo baarandagay weeyaan walaalayaal dadkan ama asaga yaqaanay ama hawlo ka dhaxeeyeen ama ganacsi ka dhaxeeyeen bar aaminsanay aan wadira ama cadaan la sheego ama talyaani la sheego ama faransiis la sheego ninkan anigu waxaan aaminsanahay Soomaali ayaa dishay nin Soomaaliya oo asagana sheekhana ay yaqaaneen dadka u dhowna ahaa darasna ay yihiin ay meesha yimid ayaa waxa laga wareysanayaa iga war meesha jankirka iga war Soomaalidu meesha degan tahay wax xaqee Soomaalida anagu waxaan deganahay taraagayaalka ka qaybta dambe deganahay xaqee way ninkan marka intaad ka ogtahay ninkan ehel baan nahay hay familkayga Allah u naxariisto hay gacanka xaq daran baa dishay habeenkii ay soo galayso filaaya jibci hay waa sababteedii markay ishu tujiyay hay telefoon baa soo dhacay hay telefoonku soo dhacay kadib telefoonku uu qabsaday asaga qabsaday telefoonku qabsaday hay boqolkiiba 99 markuu salaada isha uu tujiyo hay sunu tukan jiray kadib uu bixi jiray telefoon baa soo dhacay si qaanaan baa filaaya inuu yahay hay sidii uu soo baxay hay ama degdeg uu soo telefoonku soo baxay oo ran yaqaan qiyaas maya we don't know Allahu a'lam ilaahi baa og laakiin telefoon important ah qof u yaqaan qof si kale ku bixi kara ma laha telefoon iska soo wacdo qof isaga ka soo baxay ma laha waa dad yaqaanay kolba dad yaqaanay telefoon baa soo dhacay ragii la tukunay asaga ka dambeeyay oo badanaba talyaaniga iyo cadaanka iyo xilligaas wax ma wacaan adigu Soomaali u badi we don't know Allah laakiin qiyaastii laakiin telefoon baa soo dhacay telefoon important buu ahaa wuu soo istaagay hay wuuna soo baxay bay dadkii message kula tukuday hay markii baa ugu dambeysay laa tuugama ahayn hay ninkan arintan isku xirabay ahayd ninka in la kharijiyo rabay lacag dhaqaale xabal laga rabay hay kustuugada anagu wadka waan naqaanaa صح kuwa daraakiilada waxa isdila aala boqolkiiba 99 kuwa daraakiilka carruurta isdila hay soo marka kuwa isdila waa kuwa dadka waaweyn la rabo winter listiga dhaqaale laga rabo waa la kharijiya dhaqaalihiisa qofka dadka soo dirsaday ayaa bixiyo ay waxba kama rabaan kaliya say ila dhaafiyo si ganacsiga ka dhaxeeyay ama hawsha ka dhaxaysay ama adigu wixii ama hadda Soomaali ma dhihi karno ma dhihi karno laakiin adigu waxa leedahay ninka kan dad ay wax ka dhaxeeyeen ama dad maartay wax ka damacsan leest ninkan arin plan laga shaqeeyay baa ahayd ninka in lagu waa cadaayo ninkan cadaan ajnabi waxba kama dhaxeeyaan sax madow balaag Ameerika waxba kama dhaxeeyaan sax cadaanka waddankan dawladdan waxa jirto sharci baa jiro ninkan cadaan ma dilin sax madowna ma dilin صح عدي دش الله اعلم انه هذا الصومالي ما ديه كرنو انا كل الصومالي ما دشين مايا انه جاري كان فيري انه ايه الكيسان هيكا horta dambiile qabiil ma Soomaaliya ma shakhsiga dilay wala heli doona insha Allah Allah ka soo ifbixin doona adiga marka waxaad aaminsan tahay qof wax ka dhaxeeyay ama yaqaan soo wacay waa qorshaysan tahay balaan u ahaa sax suugada waddanka markay wax dilayso way istaagtaa gaasashina istaagtaa wixii ka barigeeda ka tagtaa sax so this was planned waxaanu maana arag wili nooca loo dilay oo Soomaaliya waddanka joogaana oo saan loo dilay oo Soomaali baan aaminsanahay anigu shakhsiyan Soomaali baa dishay baan aaminsanahay 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 ana aaminsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatu daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba aad joogtaan waan idin salaamayaa arooriyo suban maalin wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada أخبار عصب أدبن إذن جعلها هرت مال الباد جوتين سيدي لسعتان أدبن إذن جعلها أن شيخ لقد لي ودن كاس مريكنك شيخ الله دلي يا دلي محلو دلي قرما دلي حاجة لقد دلي سدابة لو دلي سؤال فرب بدن ayaa isdaba socda waxayna u taalaa cidda hadda meesha joogto booliska Mareykanka dambi baarista dadkaas ayay u taalaa inay soo cadeeyaan marka hore anaga Soomaali ahaan sida hadda aad maqlayseen dabcasar ka dhawaajinay boqolkiiba boqol dabcasar wuxuu aaminsan yahay in ay Soomaali dishay taas waa untuhun oo uu qabo dabcasar saxna waa noqon kartaa khaladna way noqon kartaa tuhunku exactly boqolkiiba boqol sax maaha sheekha la dilay muxuu qaban jiray
sheekha wuxuu ahaa imaam masaajid ka soko wuxuu ahaa nin ganacsado weyn sida la sheegay gaar ahaan wuxuu ka shaqaysan jiray uu ka ganacsan jiray baa la yidhi baabuurta ayuu gadi jiray nin xirfad leh oo shaqaysanayo marka laga soo taga culimonimadiisa nin shaqaysanayo oo kambuniya waaweyn le baa la sheegay allah ha u naxariisto inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaah ha u naxariisto hadda markuu dab casar uu tuhunsan yahay soomaalida wuxuun ku tuhunsan yahay ganacsiga iyo xirfadda iyo shaqada las dheer yahay soomaalida wada shaqaysanaysa dhexdooda unbuu ka tuhunsan yahay laakiin waxaa moodaa dab casar in horay uu waxa usii ogaay ama wax sii dareemayay oo wax jireen middaa tuhunka dab casar oo uu soomaalida tuhunsan yahay xaggas ka dhig run bay noqon doontaa ama been ayay noqon doontaa waddanka horta horumar ayuu gaaray ma aha waddan africa ma aha waa waddan horumar gaarsiisa 20 sano ka hore dad la dilay oo ayagii baabuurtoodii biyo lagu dhex riday ayaa intii lasoo saaro dib loo baaro ayaa la heli jiray dadkii dilay iyo qaabka loo dilay waa waddan maasha allah horumarsan waxaan is leeyahay hadday dadaalaan technolojiyadu adeegsadaan waa la helayaa 100% sidaan xalay daawanayay meel aada u fog baa lagu dilay sheekha meel oodan oo baabuurta dhammaatay ama baabuurta jajabtay ama kuwa sekonhaamada lagu tuuro qashan quba oo sidaa u oodana silig ku oodan ayaa siligii albaab weyn buu lahaay oo asna jiingada iyo silig wax ka samaysan waa la jaray meeshii baa la geliyey asagii baabuurkiisa meesha waa meel dhooqaa roob ku da-ay asagii baabuurkiisa meesha lagu jiiday lugihii baabuurka ka muuqdo iyo meesha asaga lagu jirdilay oo meydkiisa la dhigay waan aragnay oo waa daawanaynay waa meel aada u fog weliba waxay kasoo horjeedaa xara aada u weyn oo baabuurta taraagyada ay soomaalidu ay kaxayso ama ka shaqaysato ay ka buuxaan intaasoo taraag halka ay ku jiraan oo ay soomaaliya kasoo horjeedo waddada dhinaca kala oo opposite ku yahay meesha lagu dilay ama sheekha lagu qariyay horta dhulkaasi si camera uu leeyahay meel walbo si walba waa loo heli karaa lama weyn kara sidaa nin la wareysanaya aan arkayay wuxuu yidhi markuu salaada ka baxay oo salaada dadka tujiyey salaad sunno uu tukaday markuu tukaday kibacdi telefoon baa usoo dhacay dadkii markaa la joogay warka laga hayo waayaa telefoon baa usoo dhacay aada muhiim u ah telefoonkii uu ku hadlay kadibna gaarigiisu qaatay wuu soo baxay halkaas ayay dad ugu wardambeysay telefoonkaas muxuu ahaa yaa soo wacay ma dadkaasaa dadka soo wacay dadka dilay caddaymo badan waa la helayaa sida booliska la wareysanayaan arkayna waxay dhaheen baarista kama hor dhicayno waan baaraynaa kibacdi baarista kibacdi un baan wax sheegi karnaa sax cid walbo sida boolista oo kale dib ayay u noqdeen oo waxay dhaheen waxaad anaga naga warsuga okay markaa usoo noqono tuhunka dab casar talo masax buu noqon doonaa amase khaladuu noqon doonaa dab casar 100% wuxuu aaminsan yahay in ay dishay soomaali tuhunka dab casar maxaa keenay warkaas tuhunka oo dab casar uu sheegay hadday soomaali kusoo baxdo soomaali hadday kusoo baxdo bal ka warramo dad soomaali haddii loo qabqabto bal ka warramo dad ganacsiga kula jira haddii loo qabto bal ka warramo ay ku caddaato ilaan wixii soo baxo baaristaa la sameyn doono waa baaris horumarsane haddii la arko lasoo qabto
bal soomaaliya ka warrama halkee soomaali markaa u socon doontaa inta loo tahriibay inta beeni barabagaano la sameeyey inta dhuumaaleysi lagu tagay meeshaas haddii haddana shantii soomaalida ah meeshii joogtay ay isu adeegsato gaalada ama cadaawada isu adeegsato maxaa iman doona dhulkaas horta gaalo waxaa ku badan cunsuriya oo aad u nacab qowmiyadaha dhan meel walba ay ka imaadaan soomaalida waa dad iska warqabo waa dad shaqaysto waa dad maaragtay feejigan waa dad iska warhayo meel walboo joogaan waa dad maaragtay diintooda haysta waa dad maaragtay xaafadaha iska warqaba waa dad isu gurmada oo iscaawiya kama filanayno in arrintan kasoo dhex baxdo dad soomaaliya